إلى كوري عشقيقة إلى كوري عشقيقة كلك أنكو دايو كلك عيليا يقسي كوردي كل يو إلى كوري عشقيقة إلى كوري عشقيقة حسك كما قوين قلبي باكتبه ملكا تقين قماني نفتي افكو جعلي قلبكو كلسون باكو لمان كو لمان كل قود هبلها كعي كالا بحي هذي كالا بحي قلبكو كلسون باكو لمان كو لمان كل قود هبلها كعي كالا بحي هذي كالا بحي أذكر يلاب يقول يهو قلبكو كلسون باكو لمان كو لمان كل قود هبلها كعي كالا بحي هذي كالا بحي قلبكو كلسون باكو لمان كو لمان كل قود هبلها كعي كالا بحي هذي كالا بحي أذكر يلاب يقول يهو kasoo qaybgalay xafladan qiimaha qaayaha leh soo kale waxaan mahadnaqayaa kooxdan ay maanta xafladooda joogno ee Topson sidoo kale waxaan mahadnaqayaa jilayaasha youtuberada tiktoklayda facebookleyda whatsapplayda meesha joogta runtii aad baan ugu mahadnaqayaa sida fiican ay u soo ajiibeen xafladan ugu horreyn magacaygu waa xasan bulbul waxaan ahay shaqsiga halkan xiriiriyaha sidoo kale waxaa xiriirka walaashay hibo ibraahim oo xubin ka tirsan xoriya tv oo soo dhaweynayo waxaan ku bilaabi doonaa aayaadka eebe waxaan ku soo dhaweynayaa injineeruhu si aayadaha qur-aanka inoogu aqriyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد وصدق رسول الكريم waxaan ku sii socon doonaa xafladeena waxaan hadda soo dhaweynayaa xubin ka tirsan kooxda waa Ayuub Sahal Maxamed xubinka kooxda soo dhaweynaya السلام عليكم دمان مرتشف مش كنت حتى أعطي تقولي أقول دمان مرتشف أنت مش كنت أسأل سناك بعد الحمد لله لو بقول غير كذا لو أنت نبض قول نوع كلام من هذا الخطوة كوح مركوبة حاجة في الميراث ركتان إنه نروح للبلد مركز أساس إنه كوح إنه ما ننتهي sayaan dadka magac ku yeelano ama bulshada isbarno laakiin waxaan ugu talagalnay waxay bulshada ku qanci karto oo magaranaysa dareenka bulshada markasta ka tutumiya inaan u soo bandhigno oo aan tusno markaan doonaysa inaan bulshada wax tusina noqoto caqabado badan leedahay dhinac kasta waa noqoto caqabadahaasi inta badan waxay ku turjumayaan qofka wax isaga soo gaadha markaad wax jiraysid dadka wax ka feedback ka yimaado dadka waa magaranaysa wax adiga cariyaan ama wax kala noqoto intaas waxaan kaga gudbin dhalinyarada ku soo gudbin filmiga ugu horeeya asaaska gediga guusha waxaan uga soo gudbinay dadaal daacadnimo ismaqal kala dambeyn iyo ixtiraam intaas baa marka la helo dhalinyaro laga helo qarnigeeda joogtaa inta badan lagama helo dhalinyarada laakiin marka laga helo dhalinyarada halkan joogta intaas waxaa sixnaanaysa marka guusha yidhaahdo guushuna haddaanay sabir lahayn waxaa tilmayso sabirkuna haddaan guul lahayn waxaa tilmaado qof iska sabraa maanta hadduu sabra sabro laakiin waa iska dhawaato waxay noqon karta waa soomaalida wax kale u taraa qodobka labaad ka hadlaya wax weeye maanta kooxda Topson filmis waxaan u aasaasnay أبو الدواء وعقيادة الشرم دراسة بشدة الحجرين تحديثها هذين نقطة داعش عن المضى قف عن بوزيشن كله وترى الله هاي نعم دراسة عن القبر
professionaalnimada iyo positionka qof kasta uu ku wacyi inta meesha joogta waa aragsan mid kasta positionka lagu jiri karaa haddii qosol noqoto haddii actor noqoto haddii boss noqoto inta uu jiri karaa xafladana waxa loo qabtay wax intaa waxa haybay qofna wuxuu naftiisa u hayo oo arkayo ama qof la soo rayo maanta actor ku tiiyo ma actor ma noqon kartid haddana marka laga dhaadhiciyo qofkii practical fardo qaato waxa uu muuqanaysa qofkii inuu magalasa practicalkaas inuu naftiisa wax masiida lafahatin inay lahaadayaan marka hore ismaa misri marka hore wax fitan karo laakiin markii dambe practical fardana sameeyay ama tartana badan koox dhexda laga sameeyay waxay maasha Allah guushan doon soo gaadhay anaga guushan dhacay ka noqoto laakiin guushan uu gaadhay wax ka koox gaadhay maanta waxay ka aragsan xaflad ay soo qabsato kooxaha la midka ah gaadhay wili ay qabsato inta ka bacdi waxa kan aad u amaanay gudoomiyaha kooxda Saakir Axmed Jaamac oo ah gudoomiyaha aan ayka mar noo intaan gudoomiyaha soo arkay aan ahay way qofku gudoomiyaha hadduu soo xidhiidh noqdo ama uu kaligiis noqdo waxa kooxda ka hagaagay wax hagaagay jiro waqti xasiin qofka ka dhaxla warta maahan markuu gudoomiye noqdo qof bulshadii ku dhex jira dhalinyarada ku dhex jira waxay qabtaan la qabanayaan go'aankii keenan go'aanada aan soo gaaray in kooxda intuu dhex galo oo go'aankaas ay ma xaqoona isagoo aad u gamaan gudoomiye waxa la qadar sacad hawada gudoomiye qofka labaad aan doonayna maanta ku mahadceliyo aad kooxda halkii gaadhay ugu soo gaadhay awgii ama aan ogaanada soo sameeyay kooxda soo gaadhay wasaaib saciido Sanchez sida saacada dadkii badan waxa la calaamado maxay laakiin calaamado hore magaciisa caadiga waa la dhexdiisa lagu guriyo ay calaamado dadkiisa qofkan doonay maanta halka aad ugu mahadceliyo kooxda Disney dadaal badan la soo ganacsi la soo maray kooxda rafle ugu taagan waa xubin Maxamed Cali Asmaan lider kooxda mahadcelin bacdi waxaan doonayaa inaan kooxda lamadii dadkii marsalka soo galay oo sheego marka doonaysa inaad guul gaadhay wax kasta oo ka horma karaa si waxaan hargeysin doonay xaasibiin waa dad la soo galay ugu jiray oo waxaan doonayna noo qabtay laakiin haddana marka doonaysa inaad meel gaadho caqayb farba ka hormanay caqaybkana haddana u sameeyo oo aad maxamadda taagan haddee wax laga baxo aad sameeyo isbedii guusha qofku gaadhaya haddana dee wax sabirkaa yeela السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو محسن يحيي أيوب سهل محمد waxaan kaloo kusoo dhaweynayaa xubin ka tirsan kooxda Topson Films waa Xasan Nuur Axmed waxaan ku salaamayaa islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan xaggan ku mahadnaqayaa dhammaan maxay taageerayaasha kooxda maxay lafdhawr waa xaggan kale waxaan ugu mahadnaqayaa دين محيط الوقوع سيو لكن تو وحنا دون نقل تاين محيط بشدة وغير حكرتو السيق دوميها ساكر وحنا يقول دوميات بماسنت هاي حلقة محكومة نقيا ولكن سهيب عنا هاي ولا عظمة حتى لفدور تكوح ذا هذه أضواء ماسنت هاي مرور بعد إذا كان نقدر تالنت هاي حاجة كلام محكومة نقيا محيط هذا اسمه محمد علي عثمان السلام عليكم ورحمة الله يمكن حسون وين يا أبوكر محمد سعيد وأنا عارف الكوخة أبوكر الله يركز أبوكر حلو شيء من هذه القرآن وكان سمعت ولا هذا ولكن هو ما شاء الله سيد هذا ninkaad sugayseen ma aha nin aad u buuran ma aha nin aad u madow xoog weyn balse waa ninka aad ka daciifka ee dhuuban ee la madow inuu bishii rabadaan imika soo soo waxaan halka kan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay barnaamijkan waxaa mahadda koowaad iskale ilaahay oo iskugu keenay madashan aadka u quruxda badan mahadda labaadna waxaa iskale dhammaan bulshaweynta iyo dadka kan aadka u quruxda badan dhammaan isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu jiraan maadaama ay yihiin youtubero jilaayo nooc walba maasha allah aad baan ugu faraxsanahay inaan indhayaashiina aadka u qurux badan aan soo hortaagnaada caab waxaan u gudbayaa taariikhda kooxda oon wax yar ka taabanaya maadaamaan ahay nin aad wax yar ka og kooxda
horta markaa wax la bilaabayo si aad ogtihiinba bilowgiisu wuxuu wataa xaaladiisa balse waxaad midhihiisa iyo badhaadhihiisa aad gurataa marka aad dadaalka iyo waxa dadaalkaaga aad sii laba laabto kooxdan aad arkaysaan maanta maasha allah waa kuwa kooxdan aad arkaysaan maanta sidaad ogtihiinba waxa lagu bilaabay 3 qof maantana waxaanu guranaynaa oo idinkuna aad guranaysaan midhihii ay beereen 3 qof maasha allah haloo sacbayaan leeyahay waxaan u soo gudbiyaa barnaamijkayga intii ugu dambaysay anoon jeclayn inaan hadalka ku sii dheeraado maadaama aan ahay nin aad u xoog weyn hadal badan xambaarsan aan ahay ninka aad ka wadaaya oo dhuuban liidka waxaan mahadnaq gaara siinayaa dhammaan mar labaad mar saddexaad bulshooyinka ka soo qayb gashay barnaamijka kooxda Tobsan Films ayuu ka soo qayb gashay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa gudoomiyahayga Sakariya Axmed Jaamac Onley maasha Allah guusha aan taaganahay maanta waa ninka dhidibada u dhisay ee horumarka iyo halkaan taaganayna soo gaarsiiyay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u sii mahadcelinayaa Suhayb Saciid Nuur Onley oo walaal Allah isagoo inta ka sii cad baan jeclaan lahaa la oran lahaa Ali Cadde maasha Allah magacaasna inuu saaran jeclaan ninkii gaabane dhubnay rabadaanta ka soo baxay in hortaagnaa naanistiisa ma garanaysaan insha Allah waxaan oran lahaa naanistiisu waa Seera Bakor waana directorka kooxda maasha Allah assalaamu calaykum warahmatullahi waxaan ku fiirsinayaa ninka aad ku wada garanaysaan anu waxaan u aqaanay sadkii nuur baan u aqaanay laakiin markii dambe wuxuu la baxay xal Soomaali waa soo dhaweeyay casar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنت وقت وحى آدي عندكم هالحالية عندكم هالنقية وقت بدل الحفلة دي مسجلتين أنا نوت معدين ولو هذا كثير ولو هذا البرنامج أنا بقول أنت تصدق الكبير أفضل ما صرت ولا أكثر وحنا يرجعنا إنك تتصل كوحدة توبسون فيلمز وعلي أحمد يسوق dhammaan isku keenay meesha inagoo dhammaystiran dhammaan aanu maanta waxaan halkan uga mahadcelinay dhammaan youtuberada iyo inta jilaaga ee aan wada garanayn dhammaan xiisan jiraan maanta aanu indhahayga hortayda ku arkayo horta wallahi ismaan lahayn nolosha aanu maalintan bilaabayay ama aan kooxda kusoo biiray ismaan lahayn koox waa jilaa waad noqon kartaa hobbigayga way ahayd inaan jilaan noqdo oo aan wax jilo laakiin nolosheeda isma odhan waa koox intaad ku biirtay caadi wax u jili doontaa laakiin bilmuqaabil ilaahay wuxuu siiyey dalabkayga uu oofiyey oo waxaan noqday maanta jila aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta markaan kooxdayda soo eego bilowgeedii wallahi 3 qof bay ahayd oo sida la ii sheegay ama markii aan soo gaadhay aad uma badnayn laakiin maanta aanu markaan eego kooxdayda iyadoo isku duuban farxad baan galaa walow haddaan maanta aanu niyad jabo ama in yaroo cidhiidhiyada ama aan dareemo wallahi halka ugu horreysay farxad kale waa kooxdayda dhexdeeda maanta dadaal waa la muujiyay dadaal intaa ka badan horta waa la naga sugaya waayo maanta dariiqa awalkiisa baan taaganahay kooba ma aan bilaabin laakiin hadda jeer waxa loo baahan yahay koox kasta maanta aniga kooxdaydu kaliya maaha dhammaan kooxaha kale aasaasmi doon iyo kuwa aasaasma dhammaan waxa leeyahay isku calool feeyobaado waayo maanta hadii la isku calool feeyobaado wallahi wax kasta uu idin suurtagelaya maanta aanu inta kaliya ku faanaya waxa weeyaan calool feeyoba kooxdayda ka dhex jirta hadalkana sii dheerayn maayo hadalnahan ma baxsho waayo dad badan baa iga dambeeyay dhammaan youtuberada inta kooxda ka soo qayb gashay xafladeedana waxaan idin leeyahay inay waad ku mahadsantiin ka soo qayb galitaankiina aad iyo aad baad mahadsan صح أكرم قلت مرة إلى المعسكر أسوق قلت الناس أسوق قلت البلد فالمعنى كان وحن وجمع الأهلية وشيلة قلت البلد يستعمل عوان فرحسني وشيلة شو لا قلت البلد يباتشيا ولو قلت مرة دي مرة وادي مستحيل عن جمع البلد يستوى قلت البلد عن نسوء شيتين أيضا بس كل بيوفر يعني تثبت شيلة شو لا عمسكر يعني لها سكننا بدل مش سكننا بدل معاد سكننا أهالي أدو فرسان هاي كل مرة وانا مسح على المرة الأدو من الأدوية أنا كنا ضياف الكوفة وتنيا والله ما تقانا أنت فرق والله ما مسيت على قصة المكراز كل قصة صغيرة وصغيرة ضيا وشاب فردين أخويا بيجي مكتب غير سنا هذا لا على عن تعلم مرة هذا وبيجينا قلت من السؤال سريع سريع والله ولكن حبيبي أنا لا أتوصل على كابيو ومرة مكراز سأنت من ستي كوحدة توبسون فيلمز دلالك على الوضع إلهي
adoo wadada xukuumataan ku dhaado waxaas waxay ku hadlayaan ayaga hadhow markii guriga la tagay inuu adeeg qofka hore daawanaya uu yahay marka wax la dhalinyaro haniyadtabina haysmahadinina guushu waa bilow dariiq waa dheeryahay hawshu way socotaa yaani noqon inta habeen noocan oo kale inuu kala wada farxo in kulankaa xiga sanadkaa xiga kooxdu markii xaflad noocan kale haddii alla wada ogol ay qabsato in intiinuna soo wada fadhiya 2 qof ama 3 qof ay ka soo hadhaan kooxda ha noqoto koox sidaa markii horeba loogu bilaabay wejiye midaysan dad isu faraxsan oo isjecel in jacaylku aanu nusqaaminayo ahaado wax sii kordhiya oo maalinta dambeysa sii soconaya waan hubaa intuusu habidinla joogo jacayl meesha laga dhex waayimayo kooxdu waa isku sii dugnaanaysaa dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa akhyaarta kale diyaxsho waan ka tirsanaana salaam baan idinka sidaa waanu idinla wada joognaa farxaddu marka halka la wada joogo dhammaan dadka fadhiya waxay ka midaysan yihiin inay caawa oo kale yimaadaan hambalyo waxaad qabateen iyo hawshaad haysaan iyo halkaad maraysaan waan wada arkaynaa wax cid looga sheekeynay maaha hadal badan aan ma bulsho amaasantiin aad buu mahadsan yahay aaminsaxadi imkana yaa ka helaya inantii hablaha agtarshada diyaxshow bismillaah waxaan malaynayaa horta caawa aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin akhyaarta kala duwan meesha fadhida waxaan malaynayaa dad madanaha iyo waxay sumanaa fiicneen caawinada igula soo khaldanteen haddana waa qushii wana hadlayaa farxadda caawa darteed horta dee hadal waxaa dhameeyey amisaxafi baynu dhameeyey waxaan idin leenahay kooxda midoobay maanta bilaabaysa jamiilka waynu ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay hambalyo baan leenay kulliyo kowjeer dee noqda kuwii intaa kasii ballaadha xafladda mid lamid aan isku aragna haddana idinkoo intaa kasii ballaadha oo kasii magacweyn intaasaan kaga baxayaa hadal badan maa qaangeey tan waxaan yeeri doonaa walaalkay cabdiraxmaan xuseen soo dhawo walaalo soo dhawo أنا علي لون هذا فتأكد من سلام يعني شرفت سوق الشغل أو من القرآن وحنا مقبلين ولا لا يتوصل فلوس ولا يحب كل طلاب شتين هربا فتحاوك وهالكي واحد شيء ديال وهذا بالبا هالكي لو كان ديال هو كمان وحلا مرة بقى أتصلت بوحوية جيت أول مرة لك بصوص على بدأ مع بصوص على واحد صور بصبر أنا آخر واحد والله واحد تعاون كرام حلقة بدو بعد دورنا واحد لا هي قوشو وصدرو واحد صار وين أتوصل كتير مرة واحد لا ولا كيفو فروس هذا صبرنا هذا ما بسلام يا تمام إن المجلس ولا بشيء أصحاب سلام دمانتي أصحابته اليوم مرتشر كسوق في برنامجك حفلة ولا عليها تبصم في اللبس دمانتي guud ahaan iyo gaar ahaan dhalintan wallaahi way adag tahay in dhalinyaro intaa leeg ay inta isu abaabulaan inay dad qanciyaan waxa ugu adag dunidana waa inaad bulsho qanciso bulsho markaad qancinayso ma aha way weyn tahay marka loo bulsho qanci midku diidan iyo midku jecelba labadaba waad qancinaysaa wayna adag tahay inay muddo 2 bilooda ay heerkaa ku soo gaadhaan waan wax baliyanayaa guud ahaan laba waxna waa sidaa mid weeye waa hambalyaan intii halkan fadhiday iyo inta maqan ee daawataba aan uga sido talabaad waxay tahay magacaygu waa Isaaq Saal Maxamed waxaan ahay mulkiilaha Saal Software qolo dhalinyara software hada waxa sameeyay IT-ga waxaan halkan uga hambalyeeyaa inay u yeeshaan hadiyad una helaan inaan ugu ballan qaadayo inaan si free ugu sameyn doono site iyo app ko xidhan YouTube-kooga si gaar ah inaan ugu sameyn doono inay noqon doonaan YouTube ugu horeeyay ee app yeesha Soomaali ma jiro site u jira abi laakiin YouTube abi ma jiro taa waan ugu hambalyeynaya anana u hadiyeysiiyeyna
talabaad u sidaa waxay tahay way batay youtuberadii hal talaan siin lahaa waxay tahay si waxa wixii u noqdaan midnimo u yeeshaan inay balmidoobaan oo wax qurux badan way qurux badan yahay waxay soo bandhigayaan laakiin inay bulshada marka la imka waxa fadhiya youtube waxay badan imka nabadan dayaxsho inama kala badan yihiin habeen walba midaan maqlaa dhammaantoodna waxay sameeyaan way jiraan bal dhinaca kale oo la kaco meelo kale ka gala youtube waad mahadsantihiin wixii contact namadaan u sameeyo waan idin sameynaya insha allah waad mahadsantihiin dhammaantiin horta midna idinku sheege midna idinka ilaaweye waxaa ku jira wiila walaalanahay waxaan filayaa inta halka fadhida mid walaalkii fadhiyo ma jiraan malaynaya haddaan khaldanayn ayuu saal maxamed walaalkay taladaydu waxay tahay ku soo gabagabaynayaa xirfado kala yeesha tin wada oo fiicantihiin laakiin isku daya inaad meelo kale ka soo gashaa bulshada waad mahadsantihiin dhammaantiin martida mid ka mid ah khaalishad aad soo dhowaa nashad meeshaas ku simid waxaana si khaas u salaamayaa kooxdan aadka u taageeray ee top semis uu ugu horeeyo anusay uma aqaana waxuu aqaanaa magac yara sheegi maayo kolley hadalkii badnaa waa la yidhi laba arrimo markuu ku darsanaya kooxdan la dardaarmaya koox maadaama aan leeyahay waxaad u malaynaya inay yihiin kooxdii ugu dambeysay magaalada hargeysa jilaa soo noqota waxaan leeyahay wixii cusub caalamka jecel ee hore u socda dadaalkiinu yaanu noqon sidii aad u dhaafi lahaydeen kooxaha kale dadaalkiinu ha noqdo si aad ummadda soomaaliyeed u qancin lahaydeen ood wax ku bedeli lahaydeen talabaad waxaa odhanayaa maadaama aad bilow tihiin oo aad meel fiican aad mugdiyar ku gaadheen dadaalkiinu hakan iyo jabina waxaa la yidhi haddaad wax bilowdo oo aad kaga hadho dhexda amba dhaado usii dhaweyn aad ka hadho waxay la macno tahay adoo waxa aan u baahnayn intaasaan oran lahaa waxaana jeclaa bal inaan qof aan hadalkiisa ka yara daba tago oo nagu yar kuleeliyey wuxuu ahaa magaciisa sahal software horta haddaan nahay youtuberada dee noloshay oo dhan youtube maanu gelin nin walbaaba aqoon buu bartay jaamacad buu ka soo baxeen youtube waxaan isticmaalnaa un 4 saacadood qayb kamid noloshayda wax yar maan ka isticmaalnaa nin walba mustaqbal iyo aqoon uu leeyahay sida qof kasta uu leeyahay youtube waxaan u isticmaalnaa un entertainment iyo bulshada fikirkayga ku jira inuu bulshada u gudbiyo laakiin ma isticmaalo khibrad kaliya ma isticmaalo qof kasta khibrad uu leeyahay saalna waxa la yaab maasan tahay talaada waxa laakiin ogaataa hadeen qof kastaba uu aqoon iyo uu horumar hiigsanayo youtube waa qayb kamid ah waxa ugu yar aan qabano aad ma maasantiin kooxda la yahay aad ma maasantiin martida kale inoo joogtaa waa Ridwaan Maxamed soo dhaw Ridwaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد من السلام يا مرتضى قروح بدنا كساق بكشة حفلته كوحنا آدو تاجري أنا الحفلة كساق بقولات واي فرحت إحنا آدو مهد علينا يا ساحبكي سهيب هرت هذا الكبير اللي أنا مثل آدم موقف عنها هسه الله لما يقعن هل تلون بنكوحنا سيننا إن شاء الله تلذا سؤال هرت إن آدو سكش على ذان وتكوّد وحول بالو قبسن كريو هذه تبرولية هلان إنه وضع قصتان إن شاء الله راح ندير شيء نقول فيه. زي ما تسان وحده في المسبحان يرتونا إن الله يقارنك منافسة بتسولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا والسلام شرفتك صغر الشحن مرحبا بطلع هذا الوسع جاسمي. حتى كان وحنا مهنا طبعا بدريا كوحدة وسع صوتي عشان مسؤولين كل هذا البنك على المايو لكن وحنا الله همبريو ما دام هي سنة هاي أو نسوق لما تدو كل وقت تبغى يقدم يعني إن يرى إنه نسير شيء يستحيل يعني وحنا على المايو وحنا همبريو كل شيء قاعدين خلاص على بهذه سوى حلو يقالوا ويجي فانكي ويجي في المنطقة ونقص ما لها
marka wax badanna ka odhan maayo aad baan idin salaamaya waxaana noodhan lahaa hambalya 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 injineer guud kusoo dhaweey الرحمن الرحيم waxaan aad u salaamayaa dhammaan martisharafka quruxda badan anigoo kala qaadqaadin culayskooda aad baad u mahadsantihiin waxaad moodaa intii yareedana soo diyaarsadeen weerar lagu hayo hore loo yidhiba laakiin waa ka taba tegaya kaadhi maayo xagga kooxda haddaan usoo gudbo Topson Films waa kooxda keliya ee dhisnayd muddada aadka u yar haddana gaadhay ku talaabsatay macnaha guul weyn ama horumar wacan waxaan idin rajaynayaa insha Allah inay guusha intaa ku ekaysiin Allah ka sii wadaan waan idin bogaadinayaa saaxiibkay Said على أورمو أنا كده واقوم معنا على الصومال ونحن قررنا على الصومال سيجارة نسينا نقوم معنا غيا مدام نكون بوليستي بالله تشيلان لماذا أبد ما يصير كمان يصير نسبة فيا يا نفر تسوتها منها أنا اليوم قاعد نلبر هاي وحنا كنا هذا يا مرتشرة تقولين بدنا نكسر الكشاف ولده أنا كهذا اللي أرجع مرتي دو كلية وعم كهذا يا كذا أكبر أنا بنسير لون السبعة أنا ما سنتي بعدين هاي يو مرتي تقولين بدنا لي حاليا هاي كلا بعدي مستحار مهبليو مهبل وين ثلاثة دلوا ما دام يجبر بدل كل يوم متعاسنا أين حبيت سيد الله كله ودوس مكاني يجي سيجارة ساعة كنا بلادي عسومت بيسميه ومتشرف بيسميه horta waxaan leeyahay hadal waan hadlo kaliya looma hadlo balse micnaha lagu hadlaa hadalkii dhammaadaan leeyahay kolkaa waxaan leeyahay horta Topson Films waa koox da'yar maalmo dhowid aasaasatay haddana si dardarle ayuu socotaa saaxiib yaa waxaan leeyahay halkaa dadaalkiina ka sii wada qayrkii niyadee wixii naga saree waa dhaafti doontaan aad iyo aad mar walba meel wada joogtaan ugu forward baan leeyahay anigoo dhafaa kolkaa kooxda Topson Films waxaa fadhila intaa yarayn dhaqo adigoo mudan horta aad iyo aad baan isugu leeyahay inaan la yaqo bas maxaa aniga wiiga kala kacsanayd نو ورياضة وارتي توصل ما كباصة لا نبغى وارتي ساعات نقص لما كتير بعدين هذه الناس تي لغة اللي بدنا نبيسو أريا في شماعة توصل أسرائيل أريا والله تكاغيرو ما سافر كمبارو أريا ما سكمبارو تنسى برضو ما بوزين إمتى راح يدونا martida oo weli sii socona guntiga dibadda ma marayno waxaan yiri doonaa waayka dadka soo loo badri oo ka tirsan kooxda Films بلغنا آل قيمة قاية قدمت مغام وجيو عرفين كل مليا ورتي يقوان مليا سوكي الأشعة تنكيو ليها طلبات أمنا نقول ماذا يحوين قوة Topson Films فنمكا مطعم سعانا لكن شاشة بيا وصدر وحسنين وتنكيو ليكي الأيقاي فكالسيب دوهو يعوض فرقي وذات الأشعة نوعي كاها نوعي على كهار الجراحي كان كله سيف أمير الهيئة عوض يا كتب وحاها كان هم وكان الله وجريا ولا قيمة قاية ربما وليه وقت لوك هاي أخرى وصلي إليه هذا ما سمعه هذا نقطة بوعاء أنا نسبة تسميها وتطبيق أنا وتطبيق كاش سيد بيكون شيء وكمية لا تفعل أحد وكمية لا تفعل شيء هذا توقعني وهذا أفضل وهو في صورتنا لحن وهذا thank you go forward فرمت التعليم
waa loo baahan wax cusubna adduunka cusub caalamkaasa hawlihii ay soo mareen islamarkaana ugu dambeynta ugu soo dhaweeya martida meesha si ay u guddoonsiiyaan abaalmarinaha xubintii ku guulaystay iyo dhalinyartii ku guulaystay soo dhow gudoomiye saakir axmed ilaahay barta suuqa keena dhammaanteen runtii ma doono inaan hadalku soo dheeraado waxaan soo kacay inaan tartamayaasha bartan ku guulaysan doono abaalmarada kala duwan inaan guddoonsiiyo insha allah waxaana guddoonsiin doonta insha allah martida qayb ka mid ah guddoonsiin doonta insha allah kuwa mu doonta insha allah ayaa guddoonsiin doona anigu hadalka waan ku dambeyn doonaa insha allah waxaan isku dayi doonaa xafladda inaan soo afjaro noqdo qofkii ugu dambeeya xaflad soo afjara anoo ka warami doonaa taariikha ay soo martay iyo sida tartankan ay marxaladaha ay soo mareen kole marka tartan ugu jirno soo wada garana marxalad adag baa soo maraysa insha allah okay waxaan hadda ku soo dhaweyn doonaa insha allah walaashay Muna Faysal oo guddoonsiin doonta tartamayaasha mid ka mid ah ku soo dhaweyn Muna Faysal tartanka ay soo mareen tartanka waxa laga yaabaa inay soo weydiinaysaan tartanku wax kale ma badanaa koox marka doonaysa inaad asaasto waxaa muhiima ama se lafdhabar ah inaad kooxda dhexdeeda tartanka dhex abuurto anigu waxaan isku dayay ama se firkada igu soo noqotay waxay ahayd inaan kooxda dhexda ka abuuro ma doonayo jilaa kasta oo kooxda ku jira inuu hadduu comedian yahay inuu comedian ku koobnaado waxaan doonayaa inuu meel kasta ka soo bixi karo inuu bootayn karo inuu ooyi karo inuu ordi karo inuu waxyaalo fara badan samayn karo si haddii mustaqbalkiisuna si mustaqbalkiisu maxayda u ifo insha allah waxa kale aan ku soo dhaweyn doonaa walaalkii Aamin Saxardiid oo isaguna ka mid noqon doona dadka guddoonsiin doona jilayaasha bartan okay waayahay waxaan iska bilaaban doonaa jaysidii sida quruxda badan la guddoonsiin doono waxaan kusoo dhaweyn doonaa walaashii Muna Faysal oo iyadu guddoonsiin doonta abaalmarinta iyo walaalkii Aamin Saxardiid waxaan leeyahay guul wacan Aamin bayga iyo waliba guulaystayaashii ku guulaystay waxaan u yeedhi doonaa guulaystaha magaciisu yahay waa Akram Maxamed Awaad wiraha Akram ka soo dhaweeya Akram waxa uu ku guulaystay afwanay kaalinta saddexaad haloo saabiyo dowladda Maxamed Saciid afwan kaalinta koobaad galay idiga sugaysan talo maalinba maynaba waa Cayni Maxamed Axmed ila sugaya fariidimo runtii qofka iskoorka xidhay waxa weeyaan waa Suhayb Saciid Nuur Sancho ama Cali Ormo Sancho Suhayb siduu u qalbi qurux badan yahay ay baashuna u qurux badan tahay soo soo saaraya ay qabo horta wallaahi isma lahayn badda anuu bahalkan qaadanaysa kowdha horta dhammaan jida kooxdu intuba aad ugu mahadsan yihiin run ahaantii walow ay ahayd tartan dhexdeeda loo qabtay tartankaasi inuu ka koobnaa maxay ahayday inay ahaato ma garanaysaayey tartan ahayd
walow ay cayni kaalinta koowaad qaadatay taa macnaheedu maaha kaalinta koowaad oo dhan bay wada qaadatay sida iminka maqlay xagga hablaha ay kaalinta koowaad qaadatay oo hablaha tartankii loo qabtay iyadu ku guulaysatay tii nabada markay noqoto ayay ahayd inaanu ku guulaystay sidii garan laakiin isma lahaynba wallaahi maasha allah maasha soo qaadanaysaa jilayaal waaweyn oo joogaano way jiraan qaar ay ag taagnaadaan qaar halkaa fadhiyaan haddana isma lahayn hortooda iyagaa ku guddoonsiin doonaba aad iyo aad u mahadsantahay gabeenta aad iyo aad u mahadsan waxaan u yeedhi doonaa hodan maxamed saleebaan fadlan ila soo dhaweeya waxaa kaloo u yeedhayaa isla shakhsiga labaad waa xasan nuur axmed fadlan ila soo dhaweeya shahaadooyinka saa hortaad noo sharaftay inaad aan shahaadooyinkan idin guddoonsinay ilaahay idin sharfo labada qof ee ugu dambeeyey akhlaaqda qaatay berigan iskuulka dhigan jiray ilaa foorfoorka akhlaaqdu ma qaadan jiray idinku weligiin akhlaaqdaas sidanaysaan fahmaysaa akhlaaqda adkeeya aad guddoonsin doona aniga waa guddoomiyaha kooxda Thompson Films walaalkay Suhaib Sancho abaalmarin kale uu ku guuleystay kale waxa laga yaabaa is leeyihiin waxaanu abaalmarin Sancho ku guuleystay kale qofka bilaadanka hadduu meel muhiim kaaga soo baxo wuxuu kaaga mudan yahay inaad siiso hadiyad qaali insha Allah abaalmarintan aad arkaysaan waa abaalmarin aad u qurux badan sawirkiisa ku yaala waxaan yeeli doonaa walaalkay Suhaib Sancho abaalmarintan wuxuu ku guuleystay waa ninka keliya kooxda halka dhinaca haddii loo eego waa ninka keliya kooxdan ugu firfircoon meel kastana kooxda u gala siduu kooxda horumar u gaadhsiin lahaa koox kastana ula heshiiya si ay kooxdooda ay saaxiibba ula noqon lahayd kooxaha maanta noo fadhiya iyo dadka runtii aad u quruxda hor muuqa waxaa ma filaya inaan magaciisa ku helnay aad iyo aad u mahadsanyihiin walaalkii Suhaib Sancho qof kasta oo maxayda jilaaya oo doonaya inuu jilaa noqdana waxaan rajeynayaa sida Suhaib Sancho kale inuu abaalmarin fara badan ku guuleysto إلى رقص لفه أرتو والله ما كان يقولي أحمد عدو كوشي وأحمد كقيب سنتي اسم الله حين سيدا نردم بدي وقولي سنة الحمد لله من أرتو حياه اللوغو مع النقاء إمكا مركان تاقنا إن يركوا نيدي دو حقو جرتي أرتا waxaan badqaatay dadka shahaadooyinka la siinay adigana taadi ma ka dhex baarbaaray laakiin way ka duwanaatay baa horta wax yahay loogu mahadnaqo kiisaga dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantiin u faraxsantiin horta guddoomiyaha kooxda aad ugu mahadsan yahay kooxdiisa qofka ugu fircoon inuu niyadda u dhiso ama caawa su-aal baa weydiinayaa guddoomiyaha guddoomiye kusoo dhow guddoomiye waxaan ku weydiinaya kooxda loo asaasa way adag tahay walow ay yihiin dhalinyaro wiilalyahdaba yaa kugu dhiirigeli inaad kooxda asaasto se laakiin yaa kugu garabka بسم الله horta walaal su'aal aad u wanaagsan oo su'aali kulli horta koox markii asaas gasho waxay ku asaastaa jacayl kooxda maanta walaahi runtii ii muuqata kumay asaasmin hebel u yeedh iyo hebel magac buu leeyahay waxay ku asaasantay koox runtii ku tashatay ama isku dhiirigan jirtay himilada maanta aynu wada sugayno ama hadafka maanta qof kasta la doonayo inuu gaadho waa koox doonaysa inay gaadho runtii aniga fikradda igu dhalisay inaan kooxdan asaaso waxaan arkay kooxo fara badan oo ka jira Soomaaliland ama si gaar ahaan caasimada Hargeysa kooxaha faraha badan inta badan waxay isku taxaluujiyaan ama si xooga saaraan sidii jilaayiga ka mid ah isku saari lahaayeen laakiin si anigu waxaan xooga saaraa jilaal kasta oo Thompson Films ka mid ah sidaan u soo saari lahaa mar waan u qabtay tartankaas runtii wuxuu igu qaatay muddo fara badan iyo fikir fara badan tartankan waxaan ka dhex abuuraya dhibaato fara badan baan ka soo maray hadday noqoto yani inuu qofku ooyi kari waayo dadka qosin kari waayo waxaa laga yaabaa dadkina hor fadhiya inaad Sancho kaliya u taqaanaan inuu yahay nin shactiroola Sancho haddaad ogeedin inuu shactiroola yahay maanta waxaad ugu soo hagaagaysaa waxyaalo aad u fara badan waxaad ugu soo hagaagaysaa booto waxaad ugu soo hagaagaysaa
inuu ooyo waxaad u soo hagaagaysaa inuu jacayl sheegto waxaad u soo hagaagaysaa actor kasta meel kasta uu kusoo dhexyaa ayuu maanta aad usoo hagaagaysaa abaalmarintaada argaysina maanta uu mutaystana kuma mutaysan magac cusub leeyahay laakiin wuxuu mutaystay karti fara badan oo kooxda dhexdeeda laga arkay kolley hadafku iyo guushu runtii waa mid ilaahay iska leeyahay laakiin sidoo mid loo tartamo haddii loo tartamo sideed qaab noocyaa loogu tartamaa qaababka noocaas sida ayaa loogu tartamaa qofku haddii uu sabir leeyahay dulqaad leeyahay waxaa jirta soomaalidan inta badan waxaan arkay kolley ama soomaali baan laakiinse soomaalida badan waxaa badan dabeecad runtii inta badan aan iska saari karin oo ah qof waxaad arka soo kuranaya waa shaqaysanaya muddo marka ku shaqaysto uu wixii uu doonayay uu qabsado waxaa laga yaabaa shaqada uu hayay inaanu isuuran wax meel ka dhigo ama se wax ka midho laakiinse uu bartii uu kaga hayo runtii maanta shaqada aan u haynana de keligee ma hayno kooxa fara badan baa haya kooxaha faraha badan ee tartan baan kula jirnaa ama ha noqoto koox weyn ama ha noqoto koox yar laakiinse tartankeedu runtii maaha mid bartaa ku haraya shahaadooyinkan ad arkaysaa iyo biladahan ad arkaysaana runtii waa waxay runtii aan aaminsanahay xagga kooxaannimo amase koox qabato aan isleeyahay oo ku cusub tahay dadka waxaa laga yaabaa maanta markaas tiraahdo marka shaaruuqaan la guddoonsiiyo oscar ama bilo la siiyo waxaa laga yaabaa ka daawanaya inuu sugnaado haddii aba aad noqon lahayd jiraa ama si aad kamara kasoo hor noqon lahayd ma guddoonsiina oscarkaa la guddoonsiiyo shaaruuqaan horta middaa jirta haddii aad taa jira ma aha inaad yani aad jirkaa ku darasgarayso keliya maaha inaad darasgarayso yani inaad maxay meel keliya aad kasoo noqoto laakiin isu dadaal markasta inaad kooxa fara badan ama se dadaal fara badan aad kasoo noqoto ma jecli hadalka inaan kusii dheeraado waqtigu waa gabagabo ana jecel inaan khudbada soo gabagabeeyo wallahi waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya walaalahayga aad bartan iga muuqda hadday yihiin youtubero hadday yihiin fanaaniin hadday yihiin dad wax ka basliya runtii horta say muuqataa dad aad iyo aad runtii shacabtulayaala ay bartan iga muuqdaan uu kamid yahay walaalkay oo runtii kamid ahaa shakhsiyaadka markasta ku qosla walaalkay runtii aan isaxardiin oo nisulan jiray koortooba madarka doonta laakiin saacad nasiban yeeshay inaan arko waxaa kale bartan kula sugan walaalkay khaalishayga oo ah madaxa baraanka maxaslaa goor baraanka ku samayn doonaa runtii aniga sharafay ii tahay runtiina jiraayaad fara badan oo bartan iga muuqda waxaan kaloo bartan aad ugu mahad celinaya walaalkay badri oo ah gudoomiyaha hof filmis ayaan bartan runtii ugu mahad celinaya sida qurux badan ee xafladda nooga soo qayb galay iyo hof filmis ay u dhan tahay iyo jiraa kasta oo sheeganaya magac uu kooxda ku soo jeedo sida kooxda deecshow aad baan ugu mahad celinayaa runtii kooxaha inta badan soomaalidu way siiyasaan waxa bay dhahdaa waxaa laga way jirin marka kaaraga qaybinaya amase kaarakan dadka siini amase safiyan ku darasan ku soo muuqdo way jiraan kooxa fara badan islaha kuwan xagee gaari doonaa laakiinse waxaanay aaminsanayn guushu inaan qacdooda ku jirin oo qof kastoo dadaalaba ay qacdiisa ku jirto waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa maanta marxaladan bartaan maanta aan taaganahay meel kasta shishaysaa inaad ugu aragtaan dadaalkeena waa haynaa waxaan kaloo aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa runtii haddaan silada maanta soo tiri jilayaasha bartan iga muuqdaan runtii magacada uma soo koobiyo waxaan doonaya martikaxaad inaan u mahadnaqo walaalkay stay oo runtii ah shacabtiroole runtii dadka ka qosliya waqtigiisa inta badana siiya soo dadka ugu qosli lahaa stay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan kaloo mahadnaqaya walaashay muna faysal oo ah qofka keliya ee shaqsi aan yasin yani waxaa jira hablo fara badan ama saynamo fara badan ama jira ha noqda ama magaca ha yeeshay waxaa jira waxa soo galan ku jira qofka noqdo wax yaro istusnaa soo gasha ama yasataan ah laakiinse muna faysal runtii wallaahi maalinta ugu horreysay aanoo aan arkay waxaan ka aaminsanaa inay tahay gabadh isla weyn amase yani aan bulshada la jecleen inaan la dhaqanto laakiinse kuwankii ugu horey waxaba noqday waxaa ila noqotay walaashay igu ila joogta anigoo la kaftamay la qoslaya runtii markaad bulshada dhex gasho waa inaad noqoto qof furan haddii aad noqoto qof furan qofku nacaya ma jiro qofku kuliitaya ma jirto qof maxeeda kuyasayaana ma jiro runtii waxaa mahad iskale mar labaad iyo mar saddexaad kooxda ee tursan films oo runtii magacyadooda martan aanan kusoo koobi karin haddii aan magacyadoodani barana runtii bulshada waa muhiim walaalkii akram waa shacabtiroolaha runtii kooxda walaasha oo ah laakiin haddana kooxda ku jirta walaashay nasteexo bibitinka kooxda maxamed cali cismaan afirka kooxda suuriya sakriya suuriya allahuma salli cala maxamed walaalkay xasan saki walaalkay muxuu haya allahuma salli cala maxamed cabdibsaar iyo saanjo aad wada garanaysaan iyo walaalkay muxuu ahaa bokar oo aad aragtay kooxda iyo walaashay hodan iyo walaashay cayni runtii
walaalkay anis hadii wuxuu ku jira ka soo xubin kooxda hablaha ku yar waa laakiinse habluhu ma yara xoogaa wana hablaha kuwa loo shiraya soo habsaamay warse kala saxdo ma kala dhigan inaan siyaadteedu waa runtaas ka sheegan dheer laakiinse hablaha nin uu qaban arkasaan waa fidii tubsa films waa qaal family isku jira iyo qaal u jira marka runtii oo doona ku bedela sii dheeraado insha Allah hadda ugu ma tirigelin in qodobada soo jeedo alada meel kastoo la taagan yahay laga hadalhayo hamigiisii ka dhabeeyey hamigiisii rumeeyey waxaa noqonaysaa qofka keliya ta habeen kastuu seexdo habeen kastuu soo tooso subaxii markaa soo kacdo odhanaya maanta aniga lagu hadalhaya aniga laakiin ta keliya teed ka maqan waxa weeyaan alxamdulillah ilaahay inaynugu mahad celino waayo shalay markaa روكا يوحى حبر هيدو مركز أورك هيدا كشكتي أنا شالي مركز هو فيلم إسكامي نقولي لبا فيلم ساعة أو ماشي شوكا ومركز جو ريسين لبا فيلم ماشي وغير ماتان أدي أدو الله ذي كل يلعب وتشعل هاي qofka kaliya timaasoo haray waqti galuus ka gabagabayay waxaan ku soo dhaweyn lahaa walaalkeen aan tisma aan jamaal oo isaguna hal iyo laba oo doona oo waqtiga soo gaaban yahay oo iyo iska diidina la rabo waxaan salaamayaa dhammaan mutasharrif ka soo qayb gashay xafladda Tubson Films Allah idin sharfo dhamaantiin ilaahay waxaan idin ka baryayaa guul baan idin ka baryayaa waxaad tiimbaliyada dadaalaysa xafladiinan maanta nagu soo casuunteena aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa Allah idin sharfo sidoo kale waxaan ka salaamayaa kooxaha fara badan oo ay ka mid yihiin films iyo films iyo dayaxshow iyo kooxooyin badan ayaa ka soo qayb galay iyaga waxaa leeyahay ka salaamaya Allah idin sharfaan leh markaan u soo noqdo dhinaca horumarka filmaanta qofna kuma dhasho sida uu dayax sheegay isagoo haysta 100,000 oo subscribe qof walba annaga mararka qaar waxaan daawan jiray 100 qof waxaan garanayaa 2017kii film soo saaray oo loo jiray hamiga xumaayna daawaday dad gaaraya taadu wax yar baa daawan jiray mar maalinta hadda niyad jab lahaa maanta nus milyan dad gaarayana daawada marka waxaan leeyahay ninkana niyad jabina hor u socda aad ma wadi jecelahay Allah idin sharfo anigu waxba halka sii dheereen maayo waxba halkan dee wixii hore lahaa ka qaatay kaliya tan waxaan leeyahay gacmaha isqabsada ilaahayna waxaan ka baryaa in ilaahay guul idin gaarsiiyo ilaahay inuu idinka ka dhigo kooxo ugu fiyuuska badan Tubson Films ya jannada ku dhacay dhamaantiin dadka fadhiya Allah idin sharfo aan ku soo laabto stage-kan laakiinse waa dhacday Soomaaliya ku soo laabto aan sira dhigaysano waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walaalahay sida quruxda badan xafladan uga soo qayb galay haday in hol maxaa films haday in dayaxshow films kala reebay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii mutasharrifta mar labada barta ka soo qayb gashay waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan Oscar-ka ama siyaadadaha sanjada guddoonsi maxay yihiin waxaa laga yaabaa qof kasta inuu leeyahay yahay laakiin si maaha waxaa la yaabo jacayl annagu aan u qabno uman muslim insha Allah iyo tartan iyo daacadnimo ku guuleystay waqtigu uu nagu yaryahay insha Allah waqtiga intiisa badan ku dhamaysan doonaa inta badan ku dhamaysan doonaa ciyaar oo iska ciyaari doonaa shan waqti baarshaari doonaa aad iyo aad dad dhamaantiin u mahadsantihiin dhammaan hablaha Yeah.
qalanjadayda wala qiimo badan qalanjadayda qornaanta wacan qalanjadayda dayrkeed ku dhaqan qalanjadayda qaalidoon qalanjadayda wala qiimo badan qalanjadayda qornaanta wacan nugul xubiga siibar xaaladaha ka dhowr liiga xukun sida hamaankayga ayad xera ku leedahay xiska nugul xubiga siibar xaaladaha ka dhowr liiga adunada labta ku xadhay yan layna kala xaadin adon labta ku xadhay yan layna kala xaadin xiska iyo bartamaanka